xiriirka maamul goboleedyada Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xumaaday kadib doorashadii madaxtinimada maamul goboleedka ee lagu soo doortay Axmed Madoobe markii saddexaad. Haddaba 31 August sanadkii hore ayay ahayd markii wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan lagu xiray madaarka Muqdisho isagoo taraasi ku ahaa una sii jeeday dalka Itoobiya. xarigiisa oo ay dowladda federaalka ku macnaysay inuu galay tacdiye ka dhan ah xuquuqul insaanka kadib markii hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ku soo eedeysay inuu galay tacaddi tahayna in la horkeeno cadaaladda. haddaba shalay ayay ahayd markii taliye ku-xigeenka booliska dowladda federaalka Soomaaliya ay barteeda Facebook soo dhigtay inuu wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan uu ka baxsaday jeelka. waxaa soo baxaya su'aalo la iska weydiinayo baxsashada maxbuuska. haddaba waxaa shacabku sugaya warbixin buuxda oo ku saabsan falkan oo ku soo noqnoqday jeelasha Muqdisho. isku soo ururiyo isku haleynta ciidanka asluubta ayaa su'aal gashay xilli ay jeelasha ku jiraan kumanaan maxbuus oo ku xukuman al-shabaabnimo iyo dambiyo kale.